مسؤولينta ka tirsan xisbiga mucaaradka ee cudi hogaankiisa sariya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolada Soomaaliland oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa si adag uga hadlay xanuunka kuduudiyaha oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn u hayay bulshada ku dhaqan magaalada Burco. مسؤولينta ka tirsan xisbiga cudi waxay xukuumadda Soomaaliland ku dhaliileen inaanay waxba ka qaban muddada xanuunkaasi bulshada hayay. Mas'uuliyiinta arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlay waxay yiraahdeen gobolkan wuxuu u baahan yahay in xaalad emergency la geliyo oo caafimaadka ah in dawladdu soo jeesato in cidii qaabilsanayd ilaa iyo wasiir qaabilsanayd caafimaadka ummadda iyo wasaaraddan ay yimaadaan in la ogaado halka ay xaaladdu gaarsiisan tahay. xanuunkan waxa la sheegay wixii jilicsan inay xaaladoodu ama xanuun hore qabay dumarka uurka leh dumarka umulaha ah waxa la sheegay dumarka uurka qofku dumar ku dhaca markay ugu nasiib badan tahay waa markay ilmuhu ka soo dhaco iyadoo aanay dhiman. markuu qof dumar oo mushay ku dhaco waxay khatar u tahay in iyada iyo ilmuhu israacaan. xanuunkan xanuun sahlan maaha. xanuunkan wuxuu u baahan yahay in dawladda iyo shacabka reer Soomaaliland dhammaan ay iska kaashadaan oo la xakameeyo. arrin ka maarmi weyday inaanu ka hadalno magaalada Burco waxa ku jira xanuun loo bixiyay kaduudiye. xanuunkaas lama qabo ama gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan lama qabaan. gobolka Togdheer oo kaliya ku eegyahay xanuunka waxaanu leenahay oo halkan baaqaan uga direynaa xukuumadda in wixii laga qaban karo la dadaalo laga qabo. waxaa naloo sheegay in dad badan ay sababeen inuu u dhintaan. markaan soo wareysanay bulshada iyo bahda caafimaadkaba waxaa naloo sheegay 80% in magaalada xanuunka wada gaaray. waxaan leenahay awoodii bahda caafimaadka uu ka ballaaran yahay wasaaradda caafimaadku ha timaado. marka waxaan ugu baaqaynaa dawladda hoose inay buufiso sariibadaha kale. wadanka waxa ku jira sida ay sheegeen odayaashu ama gudoomiyaashuba waxa ku jira xanuunkaas markii hore Burco kaliya ku siinaa sidaan maqalay wuxuu sii socdaa Saraar Ergaabo waa xanuun guuraya haba yaraatay waxa dawladda ama wax wasaaradda ama wax beesh ka soo qayb galay maana arag xanuunku wali waa fidaya dadka sidii buu hayaa hadii ay badma hayo daliil weyn ba dawladdu ku leedahay. bahda caafimaadka gobolku dadaal bay muujiyeen laakiinse heer qaran ayaa la tabayaa. Soomaaliland darmay ku wada fadhidaa xanuunkan maanta hadii uu Burco lagu eego de Soomaaliland dhan walba gaaraya. marka waa in sida ugu dhaqsaha badan leh xanuunkan looga howlgalaa sidii loola tacaali lahaa. intii de shubankii berigi dhawad aanu gudmay 2017 waxa weeye kana waa la mid markaa weeye kaanana waxa hawshaas waxa loo baahay in guddi heer qaran loo saaro oo laga howlgalo oo marka xaaladana aad loo baaro la xakameeyo. madaxweynaha Xamdire baaq ah madaxweyne Burco waxay u baahan tahay gurmad degdeg ah gurmad caafimaad bay madaxweynuhu u baahan tahay. ogeydeen iyadoo dadku magaalada ku dhimayaan ragga qaarkii dafirayeen barigaan halka ala war maahe waa kan uu dhinto kan uu dhint maantana waa loo dhimanaya xanuunka meed maxaa ugu dambeeyay kaayimka aynu taaganahay taasidiisi oo xanuunkani galaaftay dad badan oo kalena wuu laayay runtii xanuunkani. sidaa daraadeed waxaan xukuumadda iyo ugu baaqaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha ay khusayso ee caawiya wasaaradda caafimaadka in xanuunkan degdeg looga howlgalo. Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco.